maxaa dhacaya haddii aan kuu sheego in dagaalada aad aragto aysan ahayn sida ay u muuqdaan, in qaar ka mid ah ay faa'iido ka helayaan dagaalka laftiisa? yaa run ahaantii ka dambeeya, yaa ka macaasha, iyo maxaa nagala qarinayaa? wararka waxaad ka maqashaa Israa'iil iyo marinka Gaza, Ruushya iyo Ukraine, laakiin weligaa ma isweydiisay maxay dagaaladan u sii socdaan muddo dheer? haddii awoodaha waaweyn ay dhab ahaan rabaan nabad, maxay weli u dhammaan waayaan? xarbul madaayiq waxaa soo socda badda cas in la xidho. wuxuu yidhi Mushtaba khudbaduu akhriyey, khudbaddiisa waxaa ku jiray dagaalku wuxuu noqon doonaa dagaal meelo kale ka bilaabma oo meelo kale la xidho, meelihii kale la isweydiiyo la baadhay. waa musallas, waa saddexun in la xidho badda cas, baalmada weli badda cas maaha, baalmada in la xidho iyo in la xidho Canal Suisse. intaa haddii la xidho maxaa dhacaya? 60% waxaa dhaadhacaya batroolka adduunka yaa xidhmaya. arrintaa maxaa ka dhalanaya markaa sheekho? $100 ilaa $105 buu socdaa barmiilkii, soo maaha? 4 sano ka hor meeshuu gaadhay wuu iminka gaadhay. waxaa la filayaa 30 sano ka hor meeshuu joogay inuu kusoo noqdo oo 150 ilaa 160 uu taabsado. qaybta koowaad, dagaal iyo ganacsi. waxaa jira aragti adag oo dad badan ka cabsadaan inay ka hadlaan. dagaalku waa ganacsi. marka dagaal dhaco, hub ayaa la iibinayaa, qandaraasyo waa la helayaa, dhaqaalaha qaar waa kobcaan. su'aasha yaa ka faa'iidaya marka dagaal dhaco? ma shacabka mise shirkado iyo dowlado gaar ah? dagaalka Ukraine waxaa lagu bixiyey balaayiin dollar oo hub ah, laakiin hubkaas yaa sameeya, yaa iibinaya? ma noqon kartaa in dagaal mararka qaar la sii wado sababtoo ah waa faa'iido? qaybta labaad, dagaal aan la sheegin. waxaa jira dagaal kale oo aadan TV-ga ka arkin. Iiraan iyo Israa'iil si rasmi ah uma dagaalamaan, laakiin dhab ahaantii way dagaalamaan. weeraro internet ah, dilal qarsoon, sirdoon. maxaa loo qariyaa? sababtoo ah dagaal rasmi ah wuxuu kicin karaa wax ka weyn, laakiin dagaal qarsoon waa la maamuli karaa, waa la dheerayn karaa. taasi ma tahay istiraatiijiyad mise waa cabsi laga qabo waxa dhici kara? qaybta saddexaad, dunida oo la maamulo. qaar ka mid ah falanqeeyaasha waxay sheegaan dunidu si buuxda uma kala go'na, balse waxaa jira nidaam ay maamulaan awoodo yar. China, VS, Taiwan, Ruushya iyo Ukraine, bariga dhexe. ma yihiin dhacdooyin kala go'an mise waa qaybo ka mid ah sabir weyn? haddii hal meel kacsato, meel kale way saamaysaa. taasi ma tahay shil mise waa nidaam si fiican loo fahmay? qaybta afaraad, dhaqaalaha iyo xakamaynta. marka dagaal dhaco, qiimaha shidaalka wuu kacaa, suuqyada way gariiraan, dad badan way dhibtoodaan, laakiin qaar kale way faa'iidaan. marka badda cas la carqaladeeyo, ganacsiga waa la hakiyey. su'aasha yaa awood u leh inuu joojiyo? yaa doorbidaya inuu sii socdo? ma jidho jawaab fudud, laakiin su'aasha ayaa muhiim ah. hadda isku dar dhammaan dagaalo badan, lacag badan, sir badan. ma noqon kartaa in qaar ka mid ah dagaalada aan si degdeg ah loo joojin? sababtoo ah waxay faa'iido u leeyihiin dad gaar ah. daawada, mise tani waa keliya aragti aad u fog? runta oo dhan hal muuqaal laguma sheegi karo, laakiin hal shay waa xaqiiqo. su'aalaha aad isweydiiso ayaa go'aamiya sida aad u fahanto dunida. adigu maxaad aaminsan tahay? mise waxaa jira wax kaa qarsoon? commenti ku qor, subscribe si aad u aragto xaqiiqooyin badan. mararka qaar su'aasha ayaa ka khatar badan jawaabta. okay, waxay soo saareen khubradu afar fikradood oo torosa jirta oo mid walbaba waxaa ka dambaysa iskuul istiraatiijiya ka dambeeya. matalan, iskuulkan amba aragtida uu qabo Nufaysi waxa weeyaan nidaamku badhacayo uu salaxiifi
وضعيف وسينا روهيد كاسي لكن ما دحيو كلابات وحا قبا نيل هذا الدكتور محمد عبد الوهاب عبد الواحد وحو قبا إيران waxay ku jirtaa intixaar siyaasi اسمي ذا من سياسة اوكي burlaysaa ايه mustaqbalkeegu waxa weeyaan ima cuzla inay ka go'do bandiqada wa ima suquud ساسو waxa ku socda dagaal iyo huba halkaas oo keeni doonaan qodob saddexaad oo istiraatiijiyana oo shiinaha ah waxay leeyihiin Iiraan waxay bilowday iska maartay aabin istiraatiiji ah oo taariikhda ku soo daraysa inay noqoto quwad aan tirsanno haddaan nahay dadka Maraykanka la tartamaya اوكي ka Iiraan waxay ku soo biiraysaa arintaas waxaana qaba doogin xitaa yaa qaba روشكا اوكي qolada afraad waxay qabaan Iiraan inay istasaxayso gudaha حكا خلطان اني صحدا oo soo baxo murshid mushtaba ahayn oo ah murshid dhexaada xiwaar la bilaaba او سيدا مريكا او ربع اسراعيسو maya xiwaar buu la bilaabayaa dowladda Iiraan Maraykanka بعيد عن إسرائيل سوى إسرائيل la sheegaysanayna قرتي arrintaasina waxay keeni doontaa furi doontaa inuu khaliijka cilaaqadeedii la soo ceshado oo la saxo marka ilaa iyo 4 nin oo waaweyn oo culimada waaweyn oo qaban kara ay tulo noqon kara iyaa qaba fikrad imaamadu ay u xidhantoo la dhahdo almandiqatu laysat amniya wa inama xadaariya waa civilization baa inoo dhexeeya islaamka inoo dhexeeya nolol baa inoo dhexeysa Maraykankuna waa cadow xoog badan oo khatar ah inaan ka leexleexano way fiican tahay dibna la isku dhiso laakiin laga tanaasulin cilaaqada la leeyahay Ruushka iyo Shiinaha oo ah cilaaqa istiraatiijiya قرتي rag baa qabaan قرتي afartaasi iyo imka yaala markaad afartooda marka fiirisood eegtay akhriskaaga adiga afartooda ku aadan yaan bias ahayn oo aan udruskiisa dan ka lahayn oo si waaqic ah u eegayo samxay afartooda marka akhrisay maxaa ku soo baxay horta fikradda Nufaysi waan soo dhaweeyay marka aan ka tago fikraddan dambe uu qaatay ee ah inuu Iiraan ay ka cadowsan tahay Israa'iil oo khaliiji ahaan u eegayo laakiin marka aan eego ah inay tahay dawlad muassasaatiya oo si dhayala aan ku dhacayn laakiin waa dawlad oo bashar way la xifaysaa taa waa qaadayna dhaawac uu gaaray midda kale ah xiwaarkii gudaha ka socday ee dawladda Iiraan ma dhamaan doorashada mushtaba ma ahayn doorasho dabiiciya waxay doorasho qeyr dabiiciya degdeg waxaa keenana saddex arrimood number 1 waxaa keenay u jawaabin Trump ku nacab yaan dooranayna ku xumayn laba waxaa keenay ninkan inuu la saaxiib yahay xaraska ilaalada ciidanka ugu khatarsan ciidankaasina waa ciidanka waddanka maanta haya موقف هو أنا ما نتورك شيء كذا موقف هو أنا صعدة صح مدة صدحات يسجل الله دورتنا وحويان وعنين سيدان إمك الشيء جدونه تكوين الدولة دولة الصقر وقاد وهي فكان كان ساس الله دورت لكن هذه دخول ناتشر أهلها طبيعي أهلها لما دورتين من أي مدينة سوا وحوار كلام بدل بدون إيرانينا وحليهن ما وحنا ديدنين بنقول عنه واحد حلقة ويركيس ساس قارلين قرتي خبرada istiraatiijiyadda ay soo arkaan iyo falanqeyntooda daraskooda ku aadan waa sidaas laakiin dadka hadda markii warka soo baxay mujtaba la doortay waxa la isweydiinayay horta waa kuma mujtaba Khamenei sababta loo doortayna maxay tahay asaga maxaa loo doortay horta akhi fillah mujtaba haddaan taariikhdiisa wax yar ka yiraahdo inta badan waa la maqlay oo maadaama idaacadaha dhanba ka sheekay laakiin waxa aan laga hadal ban ka hadli doona insha Allah gartay horta mujtaba Khamenei waa ilmahii waa inankii labaad ee Khamenei nin baa ka weyn yaalkiisa Khamenei ninka